بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كسو دوادا ولا لها كان نقل الصعود سي اف بلشو muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay riyo qeyb ka mid ah aynu ku fasiri doonaa walaalo badan ay soo weydiiyeen muuqaaladii horena ay commentigiisa nagula wadaageen oo ah riyada mugdiga iyo meelaha maaragtay aan iftiinka ahayn oo qofku ruyo ama wada ha ahaato ama dariiq ha ahaato ama meel kale ha ahaato ayaynu halkaani ku falanqeyn doonaa haddii ilaahay noo ogolaado kusoo dhawaada qalbi furan iyo qacmo fidsan insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan idiin sheego asalba riyadatan ee mugdiga ah inteeda badan mashaakil bay tilmaantaa mashaakishaasoo qofka asaga naftiisa kala dhexaysa ama noloshiisaba ama dad kaleba kala dhexaysaba haddii dad kale uu nolosha yacni hadday asxaab noqotay wixii lamidka dadka ka dhow noloshiisa marka haddaad aragtid dad ku riyoonaya riyada meelaha mugdiga ee bilaa iftiinka mushkilad bay ka turjumaysaa inta badan mashaakil weeye sidaan ayaana ku ogaan doontaan qeybahan kala duwan insha allahu tacaala sida ay ahlu tafsiirku sheegeen waxaa ka mid ah arrimaha ay tusayso riyada tan inuu qofku dareemayo kelinimo yacni qofka kelinimo tusaale kale qof keligii nool waayo waxaanu ku riyooday waxay ka turjumaysaa xaaladiisan keligii noolaasho ah ayay ka turjumayn iyo dayacadan haysata way ka turjuntaa noloshiisaan uu ku wareersan yahay waxaa kaloo tustaa riyada mugdiga lagu riyoodo bilaa iftiinka qofkan inuu noloshiisa arrimo ka mid a u cabsanayo macnaa cabsi noloshiisa qeyba ka mid a ayaa qofkan haysata marka ilaahay intuu isku xiro ilaahay aamino aayaadkiisana akhristaa muhiima hadduu qofku ku riyoodo isagoo wadda mugdii soconaya oo leyrba lahaynba wado waana riyada ugu badan inta badan dadku soo weydiiyeen insaanka bini-aadankana ku badbadan yacni riyada wadada la lugeynayo oo mugdiga ah waxay tusaysaa ka tegitaan qofka noloshiisa wax badan oo ka tegay asxaabtiisii inuu qaar ka tegay hadduu qoyskiisii uu ka tagay ninkeedii ay ka tagtay ama naagtiisii ka tagay asxaabtiisii qaraabadiisii qaar kamid uu ka tegay ka tegitaan uu dad ka go-ayo bay tusaysaa hase yeeshee haddii qofkan uu arko wadadan mugdiga ee aan iftiinka lahayn uu marayo in meesha ugu dambeysa ku dhammaato iftiin uu ka socdo waa iyada marka waa la mahadiyaa waa riyo fiicanoo waxay ka turjumaysaa inuu qofkani mushkilada marayo ama mari doono kadibna ka lug bixi doono farajkii uu heli doono ayay ka turjumaysaa markaas qofka ku riyooda mugdiga ayay ahlu tafsiirku dhahaan waxay tusaysaa guud ahaanba qofkan in waxyaalaha isaga uu sameynaya inuu ka fakera ay tahay waxaa jiri karta wax uu sameynayo laakiin aan saxsanayn yacni qofka riyada meelaha mugdiga ku riyooda waxay ahlu tafsiirku sheegeen in uu dib u fiiriyo ficiladiisa iyo waxa asaga kasoo fulaya waxay kaloo sheegeen ahlu tafsiirku in riyada mugdiga lagu riyooda ay tusayso mararka qaar cudur ama xanuunkaasoo waqti dheer qaata waxay kaloo tusaysaa arrimaha nafsaaniga ah xanuun nafsaaniga inuu hayo qeyb bay ka mid tahay ama uu wajahayo arrimo badan oo culaysa ayay tusaysaa haddii iftiin kadib uu helo mugdigii kadib uu ku riyoodo iftiin inuu helay taasi waxay tusaysaa mushkiladihii dhibka haystay inuu ka gudbi doono haddii rabbi ogolaado hadday haweeneydu uur leedahay mugdigaana ku riyooto laba macnay tilmaantaa ama laba macnaa ugu waaweyn waxay tilmaanto inay dhalmadan iyo uurkan ka cabsanayso kow iyo inay mushkilada asaga iyo ninkeeda bimacnaa iyada iyo ninkeeda ay kala dhaxayso bay u badanta haddii ay ku riyooto in badan oo arrintaa kusoo noqnoqotay haddii gabadha la qabin ay ku riyooto meelaha mugdiga waxay la midka caadifad firaaq ah oo meel maran xagga caadifada ayay dhib ka haystaa yacni wax fahma ma haysato waay iyaduna cidna ma fahmaysa way waxay ku nooshahay waxa la yidhaahdo kala noqnoqosho nolosha yacni iska hor imaansho ah hadday qolkeeda ku riyooto oo mugdi ah tusaale waanu sheegnayo waxay asal u tahay in ay kelinimo dareemayso waxay la midka hadday iyadu gabadha ay gabadh la qabin tahay oo ay aragto inay wado mugdiya soconayso ku riyooto mustaqbal mugdiya ayaa ka horeeya wey mustaqbal mugdiya ilaahay dhammaanteen hanaga wada badbaadiye haddii ay noqoto haweeneydu yacni mid aan la qabin laakiin ama ha soo marto qabitaan ama weli aan la guursanin nolosheeda
xayraan baa ka haysta daran hadday ku riyooto iyo fikir badan arrin badan bay ku fikiraysaa wey fikir badan baa haysta yani mushkilad bay tilmaamaysaa mugdiga iyo wixii la midka hadduu ninku ku riyoodo wadada mugdiga iyo wixii la midka taa waxay tusaysaa baadinimo iyo macaasi oo ninka kan samaynayo hadduu ninku ku riyoodo isagoo meel mugdiya gelaya ama meel mugdiya ku jira ama qol mugdiya ku jira ama wado mugdiya uu qaadayo iyo wixii la midka macaasi iyo baadinimo iyo balaayo iyo munkar bay ka turjumaysaa iyo fogaanshaha uu ilaahay qofkani ka fog yahay ama ninka kan ka fog yahay hadduu wiil dhalinyaro yahayna mushkilado badan baa noloshiisa ka haysta hadday haweeneydu iyaduna la qabana mushkilado qoyseed baa iyadana haysta waxaad dareemaysaa marka halkaas tafsiirku ay tilmaamayaan in qofka kan mushkilado badan dhinacyo badan ay ka haystaan ama ha la qabo ama yaan la qabin ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado ama uur ha lahaato ama yees lahaan mushkilado markii uun iftiinka kadib la arko unbaa kadib mushkiladiinoo ka baxay ka turjumaysaa iyo khayr hadday uur leedahayna waa sidoo kale yani waa arrimo dhib badan weye hadday uur leedahay waxaa la tilmaamay dhalaankeedii macnaha inay dhasho ayaa soo dhow markuu mugdigu zaa'id yahay iyo wixii la midka qofka hadduu in badan ku riyoodo mugdiga iyo wixii la midka kuna soo noqnoqoto ceebna waa tilmaantaa iyo fadeexad iyo cawro waxna waa tilmaantaa marka riyada mugdiga waa mushkilad mugdigaasaad aad aragtaa waayo waa mugdigaas aad aragtid iyo dhibka aad aragtid macsi iyo alla ka fogaansho culays nololeed rafaad fikri stress wax badan marka mugdiba haddaad ku riyooto waa mugdigaas riyo mugdi haddaa aragtid mugdigaan ba ka turjumi faraj waxay leedahay haddaa iftiin ka dambeeya aragtid iftiin kuu baxay kadib aad aragtid markaasi macnaha waxay ka mid tahay dhibkiinaa ka baxday oo aad heshay farajii khayr aad baa umahadsantihiin allah idin xafido intaas ayaa rabay inaan uga jawaabo riyada mugdiga waxaanaad ogaatay inay tahay riyo xun mushkiladna ay tahay ama iftiin ha ka dambeeya ama iso ka dambeyn iftiinka waa mudaa inaa ka baxday dhib aad maraysa laakiin dhib iyo mushkilad iyo rafaad iyo ishaysi iyo deganaansho la-aan unbay ka turjumin ilaahay un ka magan gala sharteeda lacalla khayr bay noqon doontaa biidni ilaahay waxaad aragtay khayr inay noqdaan baa laga yaabaa ilaahay dhammaantiin isku xira ilaahayna aamina aayaadkiisana aamina oo isku akhriya xiriirka alla leediinan hagaajiya waxay ka tilmaamin culays nololeed iyo in xagga cibaadooyinka culays ka haystaana way tilmaamaysaa marka hagaajiya allah idin dhowro intaasaan rabay inaan idinku xasuusiyo halkaa idinku baraarujiyo muuqaalada soo socda intaan ka kulmayno halkaa noo joogo bilaahi التوفيق